kuwaasoo campaign English aad English ku baran karto oo maxaa kamid ah reading akhrin inaad samayso oo aad ashar akhrido wax diyaariso oo aad akhrin aad samayso afka kala qaado wax akhrido wax kasta ba akhriyo writing inaad wax qorto sidoo kale listening inaad samayso dhegeysi inaad samayso speaking iyo inaad ku hadal aad samayso wixii aad baratay they are collecting two parts iyaga waxa loo soo ururiyaa laba qaybood baa lagu soo ururiyaa inta qaybahan aan ku sheegay English language skills ka qaababka ugu badan ee writing iyo reading iyo listening iyo speaking ka loogu talagalay waxa waaye laba qaybood baa loo qaybinayaa waxa la yiraahdaa input skills iyo output skills input skills ka waxa kamid ah listening ka dhageysiga iyo reading akhrinta ayaa kamid ah halka output kuna ay kamid yihiin speaking ka oo ku hadalka luqadda iyo writing ka oo qorida oo haween English ka aad qorto